baraha meediyaha mid baa sheegaya horta dhalasho ahaan magacan Maxamuud Saleebaan waa reer dadku ka dhashay sidaad ogtihiin waa ma jeerteen kadibna waxa weeyaan wuxuu noqonayaa harti iyo jaala daarood iyo fulaan annagu maana dooran Maxamuud Saleebaan inaan noqono ilaaha koon kala aba noo gartay meeshaana la geliyay nageeyay cidla kursiga nooma garan oo nuguma fariisin millions of dollars baa nooga baxa ragii yimid waad garan ka dhaan inta nin meesha soo martay millions of dollars bay ku bixiyeen oo dhaqaalaha kaga baxay mid kamid ah baa guulaysta inta kalena iyagoon fitan iyo adab dariya buuq sameyn bay albaab ka baxaan odayaal way waa joogaan waa lagu xurmeeyaa ma jeerteenka kale iyo dadka hartiga deegaanka ilma adeerta aanu nahay oo Puntland wada dhisanay xaq baa u leedahay inaad tartantid in adeero macaan han yeelo in adeero dhaqaalaha xiliyahaaga fuul in adeero tartan in adeero markaa guulaysto ku taageerayna inta ka horeysana in adeero bugcadaan wada ilaashano wiilasha yararka ee Puntland u dhashay ee maankooda iyo maskaxdooda la bedelay waxaad ogaataan waxa way aqligiina lagu ciyaaraya nin aan deegaan haysan dadna haysan mujtamac ilaaliya haysan mujtamac taageer haysan baa kugu ciyaaraya guriga hooyada abu inaad soo gubtid muqdisho taga soo arka waxa ka jira nabad iyo nolol inay cidna asxaan u sameeyno cidna karaameeyno cidna weyneyno cidna sooriyeyno cidna soo dhaweyn soo arka saddex afar cunug baa la ii sheegay inta Puntland ka cararay muqdisho tagay oo yiri dani baa nacayrinayay iyo Puntland baa nacayrsanaysay waana la xirayaayo oo ma garatay fiisayaal inta la siiyay wadamo kala jooga ma garanaysaa waxa weeyaan walaal cidna ku nimankan kuma hayn karaan wallahi baysan ku hayn karin oo billahi baysan ku hayn karin oo wallahi oo billahi baysan garaadkeed lahayn oo iyaga nolol haysan isku dir iyo nacayb iyo fitan baa lagu sameeyaa lacagta magaca Soomaalida lagu soo qaato wasiiradii haykali respectiga lahaa baa loo diidayaa WhatsApp page-yadoodii iyo Facebook page-yadoodii inay waxay rabaan ku qoraan haddaad khayr iyo farmaajo amaarin shaqada waa laga qaadaya war dadka noocaas iyo dhaqanka noocaasa wax shaqeynaya maaha qofka noocaas xayib soo noqonaya bari toban la gumeeyay baan aragnay dhulkan walaal la dhiig baa loo soo shubay maamooyinka Puntland joogo dhow wada gablan way wiilashoodii baa ku soo dhintay soo waxa garata maaha cidna ciyaar ka yeeli mayno markii Puntland dhisay konton afraad baa lagu dhisay maamooyinka garoowa joogana buuraha iyo qarbisada waaweyn bay inta sabaayada ku sameeyeen bay la lugeyn jireen maama caasho geeliyo dadka lamida gaariga xunka xaajada ay ku shaqaysanayeen intuu ka jabay baa jawaana bay dhabar ku qaadayeen iyagoo dumar ah markaasay la lugeynayeen far magaalada ilaa iyo lagu tago konton afraad xoolaha iyagii hantideeda dhan baa ku dhaadhacay odayaasheeda dhan baa ku dhintay cidna ka yeeli mayno ninkii Puntland raja ka hayso Saciid Cabdullaahi Dan hal qof buu ka yahay walaal la fikirkaaga iyo garaadkaaga iyo aqligaaga loo baahan yahay imow nugu soo kordhi garaadkaaga waa dhageysanayna xukuumaddan wala wadaagayna geesahan iska galno inagoo reer Puntland aan wada danaysano oo fikirkeena iyo saliimka aynu dawladeena ku ilaashano laakiin nabad iyo nolol been iyo munaafaqad iyo fitan ka shaqeynaysa waryaal 32 qof baa u shaqeeya payroll-kooda ay ku jiraan xukuumaddii hore kuwa ku jiray iyo kuwa xukuumaddan ku jira waxa active oo Facebook wax ku qora 8 qof ma dhama dhaqaalay ka qaataan la og yahay maanta libayso 25 soo dhaca kan xunka ayna gumeedka ay Puntland joogo nabad iyo nolol qorayo maxaad aqliyo ku taageerta nimanka rag kale bariis bay qaataan bariis iyo dhaqaalaha guryahoodii hantidoodii la ilaalinaya Yurub bay ka wada yimaadeen rag xoogoodu waa la wada yaqaan rag public figure ka oo Facebook ka taageer nabad iyo nolol fiirso Ingiriiski Sweden iyo Norway iyo Denmark iyo Holland iyo Finland bay ka yimaadeen reerahoodina waa loo biilaa Muqdisho hotel fiican bay degan yihiin adigu shimbirtu dhashay maxaa ku taageerta nimanka cadowga iyo deegaankaaga ku soo jeeda oo 24/7 fitantii mushkilada nagu wada oo kuwii xildhibaanada iyo senatarada annaga aan hayno Muqdisho noo diiday inay nala hadlaan oo noo yimaadaan oo noo sacyeelaan oo na taageeraan oo cusbitaalada noogu imaan karin oo airportka naga qaadi karin oo gabar shaqo la raadin karin oo qofiisa u soo saari karin adeer colaada iyo fitantii adab darada ka jirta meesha soo arka taga Muqdisho waqti soo jooga markaa noo soo noqdo walaalayaal macaanayaal Puntland lama kala laha reer baale edab daraan u arkaa Maxamuud Saleebaan ha siinine imow oo tartan walaal macaan qof walba xil buu ka hayaa wadanka qof walba waa jooga madaxweynahan cidna nooma garan wallahi oo billahi wa taala millions of dollars baa naga gashay hadina la guursteen al shaarbaana meeqa nin baa shaarbaa laga xiray war meeqa nin baa yaanta dhoweyd qulqushay oo garanaysaan oo general oo saraakiila oo cilmiya oo Puntland tartamayso albaab ka baxay nin buuqay nin fitan wadinida darro wada ma aragteen oo Maxamuud Saleebaan waa ina gumeed dhalay oo lafa yar oo dhan uu nabadii nolol taageeraya soo Maxamuud diidaya waxaas u sharafna ma karaamana ma aha meeshaan waa la wada leeyahay aaminina Puntland leeyahay iimaanka Allah kugu sugo bugcadaanaad leedahay tanaa taqaanaa tanaa hooyadaa ku dhalatay tanaa hooyadaa joogtaa
puntland wax ka qiimo badan ma laha horteed bay jirta dowladda federaalka 2014 2015 iyadaa geysay madaxtooyada albaabaday u furtay maxamed siyaad bare dabadiis yaa fariistay meesha cabdullaahi yuusuf baa geeyey 1 milyan oo wiil baa iga maqan baabuurtayda tiknikada shidaalkayga baa iga maqan ma garatay waa ku faanayaa Soomaaliya inay isu soo noqoto oo sharaf yeelato caasimada shaqayso beel la weeye wax wanaagsan weeye laakiin farmaajo oo markaa maqnaayo oo muxuu ahayd bafla joogay ka yeeli mayno isaga iyo waxa la socda hadda taageersan maalintu xulka dhamaado wallahi baad arkayn sawirkooda arkayn oo magacooda arkayn oo waxay qoraan aad arkayn dan lay weeye shilmaan qaadanaysa maxaa cabdiraxmaan cabdishakuur loo weeraraya ahlu aqli weeye waryaa waa tanasulay habar gidir oo 1 milyan oo qof ah buu xakameeyay markii la fawdeeyay oo la dhibaateeyo gacanta laga jabiyay oo 6 wiil oo dhalinyaro ah oo shabaab oo Soomaaliya u shaqeynaysay ma garatay inta la dilay iyo kabahoodii wata la aasay isaga hor istaagay habar gidir oo banaanka u maray yiri aqliga maxamed oo keenay cabdiraxmaan cabdishakuur oo ku xakameeyay qoyskiisa iyo qabiilkiisa maxaa waxa looga waayay siyaasiyiinta kale markuu erey yiraahdo erey walba uu sheego waa khayr marag baan ka tihiin maxaa loo weerarayaa erey walba markuu sheego cirkay galayaan habeenka ma seexdaan markuu cabdiraxmaan cabdishakuur hadlo ama macallin fiqi baa kulligood bajaqsaday wiilka yarka ma ujeeda ilaahay baan ku dhaartay 50 May waa sanadu iga horeeyay macallin fiqi sanadu iga weyn yahay adiga inaan isku soo gaarnay isaga iyo Umar Cabdirashiid iyo dadka ehlu cilmiga ah oo dhan aad garanaysa Soomaalida Shining Star ka micnaha leh 50 May ka baxeen waa reexamar way oo dadkii Muqdisho ku dhashay atoora baadiya imaanaya Muqdisho inay nagu xukumaan bay rabaan sida doonaan naga yeelaan cidna ma yeelayso wiilal yar yar oo dhalinyaro mahad salaad qoraalku qoro 3 sano ay wadaan ahma cali fi qoraalku qoro ma maleyn kartid cabdiraxmaan cabdishakuur waa ka qaylinayaan odayaasha mudulooda ehlu khayrka ay odayaasha wadanka soo xukumay oo ka qaylinayaan deni waaba ka aamusay waaba inkirayba inuu meesha dawlad ka jirtay in kala warba uma hayaba afkiisa de waa boqor ninkaan ee walaal macaan dadka masaakiinta kale ma la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah maxaa ka sheekeynaysa saldano oo walaal macaan la qof lagu soo akhri live-kiisa lagu soo abqariyay saldano ku soo dhex jiray oo waligi maalin gaajo arag wax badan buu inkiraya 200 oo beenood ba madaxweynaha og yahay laakiin ma rabo intuu media yimaado inuu sheego khayr every single day deyn baa la cafiyo been badana deyn baa la cafiyo maxaa lahaa war waxaan raggii ka horeeyaa shaqeeyay xasan sheekh baa ka shaqeeyay raggii kidin ka horeeyay odayaasha baa ka shaqeeyay waxaan waa u timaadeen iyagiina waa mahadsan yihiin ma dhahaysaan wax la cafiyay iyo wax dhamaaday totally ma jiraan dadka beenta laga daayo ciidamada dabaabada cirka galay xagga la fuulay dayuurad baa laga degay wiilasha dacaska wata kaba u galiye iimaanka Allah idinka qaaday dayuurad baa ka soo dejisay wada saandal bay wataan kulligood waaba hoogeena waa beene ha ku ciyaarinina wiilasha yarka maankooda iyo garaadkooda rajay leeyihiin wadankay u dhashay inay wax qabtaan waa rabaan sax waa taageerina ciidanka Soomaalida waa salaamaya ciidanka Soomaaliya meelay joogaanba laakiin beenta iyo munaafaqada waxaan diidana dawladda nimankan mas'uuliyiinta ka ay wadaan oo maalinba dadka loo sheegayo absolutely fair maaha lamana yeeli karo waana sheegaynaa waana hadlaynaa reer Puntland wadan baad haysataan anaga joogna inta diaspora waa idin sheegaya dhul baad madax sharaf la haysataan xishoonaysa dad baad haysataan dulmi ha ka gelinina ina gumeed dhalay intaad hoosta u gali lahayd in adeerka la socod deegaanka ku soo noqo Puntland taageer nin aan sharaf iyo karaamo kugu lahayn oo bundada kugu dhaafay maxaa taageeraysa bugcad baa haysta adoo Puntlander nimanka Soomaaliya wax ka doono laandheere dhala ma magan baa Muqdisho cid uga tahay aniga xabiibo maanta idlaan leh bari baan ka degaya ninna magan uga maahi simply waxa la rabaa dawladnimadu ha shaqayso annaga shir baan qabsanaynaa danaha iyaga uga shaqaysanaynaa waa ogna in la fawdaynayo mar walba caqabad iyo dabdara keentaan mar walba oo khayr Puntland ka jiro waxa weeyaa hawlba shir hadaan qabsano 1 August waxbaad keenaysaan haddii madaxweynuhu hadda wax walba waxbaad ku aadisaan wax walba fawdo iyo mushkilad ku aadisaan nimankiina inta badda bixiyay oo sharxi wixii oo dhan u saxiixay Kenya maalintii aad warqado oo dhan wada saxiixdeen maxaa sanabiyada Muqdisho saaray baa ahaydeen waa ogna inaad carqalataynaysaan shirkayaga laakiin waxaan idin sheegaynaa wallahi billahi tallahi border to border sheekh Shariif wuxuu dhigi jiray thumma wallahi billahi tallahi border to border Puntland waa ready ma garatay haramadka sheegaysid soo kaxee riyaan noo haynaa garoowe haramadka oo cuno riyaan ku jeedinayna anaguna idinka shaarba idinka xireena iyo hooyadiin haddaan xurmeyn weydaan idin sharfi mayno Soomaalinimadu sida uma shaqayso ninna lama khasbi karo waa la isu soo gaaray awood iyo ciidan iyo dababaad baa la leeyahay waxaad ilowdeen 37 janan oo dawladii Maxamed Siyaad Bare Allah u naxariistay iyo kuwii ka horeeyay inay Puntland joogaan la taliyo u yihiin Dr. Deni
khuburaa joogta ciidankiina waa dhistay waana habaystay dabaabaad yuhubna waa la soo degay waana habaysnahay waana kaa adkoo sida alla iga adagayaan kaaga adkoo oga dacayad wad lacag ku bixi annagoon one been qaadan $1 bayrolka dowladda kuma jiro anigu iyo ragga kale oo la midka baanu Puntland daafacaynaa karti iyo adkaysi iyo dadnimaanu leenahay annaga meesha aan leen kuma ciyaari kartid nabad baan ku haysanaa kala dambeyn baan ku haysanaa maamul iyo wanaag baan ku haysanaa been baa sheegaysaa heesii maxamed siyaad dowladii maxamed siyaad baraal inta la qaado sidii 60kii hadda dowladdu dhalatay dadka maxoola u qabtaan dadku inay jireen hortiin miina ogeyn heesii baa la shiday markaas la wiil askari ah heesay wiilka askariga de fanaan iyo muallif hadda umay dhiibin waa heesii xukuumadii hore siyaad bare ay waxayn jirtay Allah u naxariistay heesii baa dadka waxa looga dhigayaa in hadda farmaajo kii koowaad yahay madaxweynihii koowaad yimaado wax walba xasan cali khayr wuxuu yiraahdaa annaga ka hor ma dhicin war adduunku saa uma shaqeeyo madaxtooyo nadiif oo goglan baad u timaadeen rag baa hortiin joogay oo qarax iyo dhib iyo mushkilo iyo adduun soo dhaafay u mahad celiyo odayaashii ha ku jeejeesnin ee darada iska daayo taangi waxaad ku jirtaan Amazon niman raga ma tihiin idinku ma garatay Puntland adeer macaana waxa weeyaan xukuumad gaamurtay weeye awood bay leedahay ciidan bay leedahay shacab bay leedahay xabiibkaas ina faaraxo idin la hadlaya ugu tabardaran oo alla og yahay aniguna biljan baan haystaa wallaahi billaahi tallaahi bina xabad naga qaaday border to border anaga haysan nala soo aadi karin naga xishoodo Soomaali waa salaamaya Puntland waa diyaar shirkayga waa qabsanaynaa cidna ma carqalatayn karto wiilkiina fawdeeya oo dabtarna la soo aada meel buu noogu qoran yahay nimanka federaalka xildhibaanada iyo wasiirada iyo dadka Puntland xamar u jooga shirkaas la idin ka rabaa haddii kale waxaad noqonaysaa ina gumeed xasan cali khayre iyo farmaajo jeebka ugu jira imaada inay adduunkiina qabsada walaalayaal berina wax ka noqotid baa laga yaabaa meeshaan waa idin salaamaya hala taageero Puntland nimada iyo macaankii dowladnimada halkan waxa ka salaamaya madaxweynahayga sharaftii karaamada leh boqorkayga Dr. Said Abdullahi Deni. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.